السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا سوالف ميلاد جوكتان بقى أمر دير يعافي ما يعني دير جينيا كسر هذا برتي ذا يوتيوب أبو كار عوالة. والشركة دي غرقة يعني دي مودي كسر هذا قيبتي أفراد. وحن مريني محكمة دي وننكي مددي جيب كيسة مددي رسيد كذي لقى هذا. So ninka Soomaaliga to recap midibu maalinkaas gatay rasiidkiisu ku gatay booliisku umu sheegin lawyerkiisu umu sheegin wuu qariyay inuu maalinkaas midi gatay. Now maxkamadda markii la weydiiyay oo la yiri nin muslimaad sheegtay oo runta sheega ilaahay ka cabso kitaab baad ku dhaartay maxkamadda cusee runta ka hadal midida ma gadata ma yiri wuxuu ilaaway inuu inta gatay waliba credit cardkiisa ku gatay oo rasiidkii uu ku gatay jeebkiisa habeenkii markay booliisku qabteen dharkiisa laga helay oo booliisku hayo kadibna ay u baas gareeyeen prosecutorka kiiska prosecute gareeyay. So lawyerkii maalinkaas u doodayay gabadha qaybta prosecutorka dawladda u doodayay point big ah buu iskor gareeyay. Now the question is mesh mididii meeday ha gato meeshaas waa marka lawyerkaygii waa soo kacay wuxuu yiri ladies and gentlemen, now every day we buy some stuffs here and there, you know, a very busy world band. Do you want to get stressed and again? I don't remember, you know, last time when I went to Tesco or Aldi or dukaan weyn aan wax ka gatay haddii la yidho shopping listigaagii tiri anigu ma xasuustay. Now the question is midi ma la garan karaa? Is it crime in this country? Maya. Question is guryaheena how many midi each one of you juriga idinka idin weydiinaya how many midi baa gurigiina taal? Qof walba midi for cheese, midi for hilib, midi for garden, midi for this. We have all midio. And we buy midio. So unless he has something else to back this up, to buy a knife, which happens to be the same day, that's why probably we will away because meaningful beway. وفريسنا marka lawyerkii wiilka Soomaaliga lawyerkii kala soo istaagay markaas yiri unless you have something else to add I would like to call my second witness. Sally, go ahead. Shiro waxaan u yeerayaa Dr. Hebel Sally dhakhtar soo kacay soo fariist marka la weydiiyay su'aal inaad ku dhaaranayso runta sheegtay. Hey, doctor, tell us about your haliri. From your experience, dan adiga ku weydiin as a doctor. Horta what kind of doctor are you? Aniga waxaan ku takhasuskaygu waa skin kan maaragtay waxaan ka mid ahay teamka jirka bodyga iyo investigation iyo medical skin kan ku takhasusay. Okay, very interesting. Haddii qof midig qof ku dhufto midida ku dhacday noocay tahay ma la ogaan karaa? Siriyo marka qaarkood some cases haddii jirka intuusan infection ku dhicin la baaro haddii midida ku dhacday aysan saas u sarreyn oo aysan saas ahayn ee ay tahay midid saas inta u gashay saas looga bixiyay. wuxuu yiri skinka bini aadamku waa very strong infection intuusan gelina with 6-7 hours lagu baaro waxa la cabiri karaa midida gashay dhumucdeeda intay tahay iyo inta ay dherarkeedu tahay waa la cabiri karaa waa la ogaan karaa. So you're interested. Good. So can I ask you gabadhan tuula ikalen habeenkii la dilay maxaad kiiskan ka ogtahay? Siriyo mina Olinsielo hospital isaya
finishkii baan galay waxaan ku jiray buu yiri habeenkaas isbitaalkan joogay dadka naas shiftiga ku jiraan ku jiray nasiib wanaag markaasba midkeeda markii la keenayba straight away waxaan qaadnay testiyadii oo dhan baan ka qaadnay okay so with your test on habeenkaas aad qaaday with your experience doctor midida gabadha ku dhacday maxay nooceeda ahayd Sirio me olan silay ninku lukatuya meel station samanan wuxuu waxaan fiirinay oo cabirnay dherarka iyo balarka anaga from medical opinion midida dhumucdeedu waa intaas oo centimeter dherarkeedu waa intaas oo centimeter okay I have a midi here to midi la soo baxo can I ku dhiibi karaa please so yeah sure saas uu ninkii uu dhiibay dhakhtarka siir mididan ka waran so saas oo cabiraya dal saas oo cabiraya si muumiya lastataan ihan sama waa aniga aragtidaydu yiri waa exactly dherarka iyo dhumucda iyo dhan walba isaga mid so are you sure about that so you definitely yes positive ihan varmasti taas asiyasta أبان هو كان سوري يا أنت سالي أوكي يعني مديدو قال كذو بلا قوان نقول كرا بلو نقول كرا لكن وحال هو بتاع مديدو كل عادي لأن كذا يدمع هذا إنه يتكلم كلا تاي سيريس تن أدقات لفت كذا كويس absolutely thank you very much we appreciate you وقت قال إيفرس markuu fariisto bumdid inta qaato leeyahay ladies and gentlemen Mr. Abdul Qadir sida uu lawyerkiisu yiri waa nin muslim ah waa nin been aan sheegin waa nin lagu soo kariyay tacaawun iyo gabadhan caawinayay iyo dididid maxkamadda idinkoo hadda hortiina fadhiya buu the biggest disrespect idinku sameeyay he lied into your faces asagoo midigatay buu idinku yiri hortiina remember may gadan buu yiri markaan rasiidka helay buu kadib qirta I went to same shop markaan rasiidka helay dukaankii uu tagay waan u dhiibay midida halkaa ku taala 199 ka ah qabahasha saala isugu laaba qiimaheedu intaas yahay can I please have exactly same serial number same meeshii uu ka soo qaatay waa saala iga soo qaatay and this is the midi I have maybe Abdul Qadir you can help us do you remember this one where's your one anigu waan gatay waan haystaa waatan taadii meeday marka midida booliisku already qoladan prosecutionku rasiidka midida markay ka heleenba gurigiisa waa la tagay eeyba meeshii oo dhan baartay mididaas waa la la'yahay waa la waayay haddaadan nothing hide ahayn where's your mididaadii buu markii hore waad qarisay waxaa tiri ma gadan hadda waad qirtay waxaa tiri waa gatay markaan rasiidka ku tusnay then please tell us don't lie to us again been hanoo sheegin haddaad gadatay shoppingkii the cheese the tomato the milky the yogurt all the rest of shoppingkaagii gurigayga yaalaan mididii meeday you know normally when we go shopping we put our shopping in the bag and we leave the bag what you did we found everything else in the house mididadi was not in the bag mididadi was not in the house police baa tagay we search everything male so perhaps you can tell us now adiga oge where is mididadi so I don't know did I ma khan maybe minki odhan baa orday so you are saying minki well so I'm not saying you know midida anagu waxa maxaad ku falaysay so anagu waxaan ahay gardenkaygan ka shaqeeya I cut I wood ban sameeya waan xoqdaa waan isticmaala waa pocket knife it's legal lawyerkii wiilka oranaya yeah it's true we all have it you know some of you did anyone have here a pocket knife where you put your keys on it crafters now we create things what we call carry in this country it's not illegal that they do away with it so what's the problem
ladies and gentlemen buu yiri ninkii prosecutionka ah oo gabadha u dooday here waxaan haynaa nin hadda ka hor dambi ka galay waddankan and this is anaga in that stage aniga xataa laftigayga markaasaa balaadu soo baxaysa hadda ka hor dambi ka galay waddankan hadda ka hor gabar faraxumeeyey hadda ka hor DNA laga helay asagoo leh ma samayn lawyerkaygii baa booday objection that case has nothing to do with it it has been almost sustain baa leeyahay ku soco su leeyahay one thing aan ka ogaan karna casekaas sidan uu hadda u deny garaynaya ayuu u deny garaynayay maxkamad baana ku xukuntay inuu gabadhaas yartaa u farxumeeyey right now from the start been buu ku bilaabay midii ma gadan halkaas ma joogin receipt waa kan waxbaan ku samaysanay mididii ma hayo let's not make same mistake again ladies and gentlemen ninkan the evidence is in front of you the evidence in his receipt the evidence waa credit card ku qoran thank you very much for listening lawyer kigi baa la yiraahday istafalaw kanan anything you want to add ad ku darayso ma jirta marka arrintan midida lawyer kayga waa lagu qaaday muusan ogeyn aad buu xanaaqsanaa maalinkaas wajigiisa I'd like to request to be recess inaan samayno 1 week la isiyaan usoo diyaar garow arrintan uga jawaab midida okay baa maalinkii maxkamadda halkaas ku dhamaatay annagoo 3-0 يعني point scoring maxkamadda hadii la dhaho 3-0 baa maalinkan la ka dhaliyay because mididaas aan inkirnay oo rasiidkeedina la ka helay